nebi idriis waxa uu ahaa qof uu rabbi hibo u siiyey aqoonta iyo xikmadda. waxa uu ku suntanaa alle kacabsi iyo cibaado aad u badan. waxa uu aad u yaqaanay cilmiga xisaabta iyo xidigaha, waxaana la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee bilaabay in qalin wax lagu qoro, sidoo kalena ikhtiraacay tolashada dharka. waxa uuna soo gaaray nebi aadan oo weli nool oo ay cimrigiisa ka harsan tahay 308 sano. waxa uuna ka mid noqday nebiyada alla doortay si ay dadka ugu yeeraan cibaadada alla weyne subxaanahu wa tacaala. muuqaalkeennan caawa ayaynu ku dul istaagi doonnaa taariikhda iyo siirada nebi idriis, nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. تسمو بنفحته ملائك الرحمن، تسمو بنفحته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn intaynan u gelin muuqaalkeenna, waxaa jira olole aynu daahfurnay maalmo yar ka hor. ololahan ayaynu doonaynaa inaan ku afurinno 100 qoys bisha Ramadaan. haddaba ka qayb qaado daawade oo ka mid noqo samafalayaasha bishan Ramadaan sida wadajirka ah oo afurinaya walaalahooda Soomaaliyeed. waxaad ka heli kartaa linkiga aad uga qayb qaadan kartid kommentiga ugu horeeya muuqaalkan. mahadsanidin. aynu u galno muuqaalkeenna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida laga soo xigtay ibnu kathiir, abtirtiga nebi idriis waxa uu gelayaa siid oo ka mid ahaa wiilashii nebi aadam, nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. abtirsi ahaanna waxa uu noqonayaa idriis ibnu yaarad ibnu mahlaa'iil ibnu khayraan ibnu anuusha ibnu shiit ibnu aadam calayhi salaam. nebi aadam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee intii uusan geeriyoon ka hor waxa uu ka dardaarmay in xilka hoggaanka qoyska iyo ku yeerista cibaadada alle uu la wareego wiilkiisa siid oo ka mid ahaa ilmaha waaweyn ee aadam. waxa uuna ku xigay haabiil iyo qaabiil. markii uu dilay walaalkii haabiil waxa uu isaga hijrooday deegaankii ay ku noolaayeen reerkiisu, sidaasi ayuuna uga dhex baxay. kadib geerida nebi aadam waxaa booskii galay siid oo culimmada taariikhda qaar ay sheegaan inuu ahaa nebi ku xigay aabihii. siid ibnu aadam markuu muddo ahaa hoggaanka reerka, sidoo kalena walaaladii iyo awlaaddoodii barayay cibaadada iyo ku baaqidda caabudidda alle oo keliya, ayuu isagiina geeriyooday. waxa uuna xilka faafinta dacwadda ugu dardaarmay wiilkiisii anuusha. isagana waxa uu xilka kala sii dardaarmay wiilkiisii khayraan. kadibna geeridii khayraan waxaa xilka la wareegay mahlaa'iil oo ahaa awowga nebi idriis. sida culimo badan ay soo wariyeen, mahlaa'iil waxa uu noqday boqor weyn oo haybad iyo karaamo badan yeeshay. waxa uu ahaa nin aad u xikmad badan, codkar ahaa, dadkana u jeedin jiray khudbado soo jiita. waxa uu ahaa qof aad u safri jiray, dhulkana aad u kala bartay. taariikhyahanada qaar ayaa ku dooda inuu ahaa ninkii bilaabay magaalaynta iyo in dadku abuurtaan nolol ka duwan midda baadiyaha. waxaa la sheegaa inuu ahaa qofkii bilaabay magaalada qadiimka ah ee baabil ee dhulka ciraaq. sidoo kale waxaa la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee samaysta taajka boqorka madaxa loo saaro iyo ilbaxnimooyin kale oo ku cusbaa aadamaha xilligaasi. ibnu kathiir waxa uu sidoo kale kutubtiisa ku sheegay in mahlaa'iil uu aad ula dagaali jiray jinka iyo shayaadiinta, ilaa uu markii dambe ka saaray dhulka korkiisa kuna qasbay in ay buuraha korkooda fuulaan, qaarna u qaxaan jasiiradaha badweynta. markuu geeriyooday mahlaa'iil waxa uu u dardaarmay inuu xilka la wareego wiilkiisii yaarad oo ahaa aabbaha nebi idriis. kadib geerida yaarad waxa ay silsiladii ka soo bilaabantay nebi aadam, sidaasi ku soo gaartay nebi idriis oo mulkiyey xilkii xukunka ee ahaa mas-uuliyadda iyo dacwadda. waxa uuna dhaxlay xikmad iyo aqoon badan. nebi idriis waxa uu alle u doortay inuu noqdo nebigii ugu horeeyey ee uu rabbi doorto kadib nebi aadam. inkasta oo ay culimmada qaar sida ibnu kathiir ay sheegaan in siid ibnu aadam uu sidoo kale ahaa nebigii ku xigay aabbihii nebi aadam calayhi salaam. alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku sifeeyey idriis inuu ahaa nebi run sheega ah. sida laga soo xigtay ibnu isxaaq waxa uu sheegay in nebi idriis ahaa qofkii ugu horeeyey ee qalin wax ku qora. sidoo kale ibnu kathiir ayaa isagana soo wariyey in markii nebi aadam geeridu u soo xaadirtay uu isugu yeeray dhammaan awlaaddiisii iyo dadkii ka farcamay
maadaama uu waqti badan noolaa cimri dheerna uu ilaahay siiyey waxaa la sheegaa inuu kulmiyey 400,000 oo qof oo awlaaddiisii iyo faraceedii ah si uu cabsida alle iyo ka fogaanshiyaha shirkiga ugu yeero una xasuusiyo inay shaydaanka la dagaalamaan. nebi idriis waxa uu dhashay 380 sano ka hor geerida nebi aadam wuuna ku jiray dadkii uu nebi aadam kulmiyey geeridiisa ka hor. culimmada tafsiirka ayaa nebi idriis ku sheega inuu ahaa aqoon-yahan dadka bara culumta kala duwan, sidoo kale wax badan ka yaqaanay xisaabta iyo xidigaynta oo ahayd karaamo iyo tilmaan u gooni ah oo uu kaga duwanaa dadkii uu la noolaa. mufasirkii weynaa ee ibnu kathiir markii uu sharaxayay aayadda 57 ee suuradda maryama isaga oo soo xiganaya ibnu jariir al-dabari oo ahaa imaamkii mufasiriinta waxa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday idriis calayhi salaam inuu u qorayo ajar u dhigma camalka dhammaan ibnu aadamka nool wakhtigiisii. waxaa laga wariyey qaabka uu u geeriyooday nebi idriis sheekooyin iyo siirooyin badan, waxaana ka mid ah in alle subxaanahu wa tacaala u soo diray malag si uu u geeyo samada afraad. markii uu malagii geeyey samada afraad ayaa waxa uu kula kulmay malagaasi samada afraad malakulmoodkii. malakulmoodka ayaa weydiiyey malagii kale halka uu u wado idriis. malagii ayaa ku jawaabay inuu u wado ilaahay, waxa uuna rabaa inuu ogaado in cimriga loo kordhin karo si uu cibaadadiisa u sii wato. malakulmoodka ayaa ugu jawaabay in la soo faray inuu idriis nafta halkaasi uga qaado, isagoo u sheegay in alle subxaanahu wa tacaala uu soo amray in wakhtigii idriis uu dhammaaday. markii uu nebi idriis calayhi salaam geeriyooday waxaa siyaaday macsidii iyo fasahaadkii ilaa muddo kadib dadkii ay bilaabeen inay samaystaan dhagaxyo iyo asnaam ay caabudaan. shirkigiina wuu sii faafay ilaa dadkii laga waayey cid ilaahay kelinimadiisa qirta. markii la dheelmiyey nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayuu samada afraad ku sii maray nebi idriis.